jigjiga magaalo ku taala bariga Itoobiya una jirtay magaalada Addis Ababa 610 kilomitir saaxiibayaal maanta muuqaalkeenan waxaan ku booqan doonaa magaalada jigjiga jigjiga waxaan ku sugnay 7 casho waxaan booqanay meelo taariikhiya waxa kale oo booqanay meelaha loo dalxiis tago waxaan booqanay hoteelada ugu caansan waxaan ku soo baranay dad aad u fiican waxaan soo aragnay ama la soo kulnay dadka ugu caansanaa magaalada jigjiga saaxiibayaal waxa weeye maanta waxaanu chance u helnay inaanu soo qabanno waxa weeye suldaanka ummadda waxa weeye xisbigaaga bal in yaroo sharaxaada dadka ka sii aan ku garan xisbiga hooyo turso xisbiga magaciisa maxaa la yiraahdaa hooyo turso la yiraahdaa xisbigaaga way xisbiga hooyo turso waxaan ka soo gudubnay dunidu maanta runta in badan lama sheego limba wuxuu raadinayaa lacag maanta dhan wuxuu kaaga sheekeen islaan iyo reer family aatiin ku dhufo ka dhaqaaq weey xisbigana waxaad haysanoo turanagu hadal ma karayneen marka waxa weeye hadalkii dheeraa iyo sharaxaad iyo waxa idinku soo gaabisano waa kala qaadasho noo tiri dad wax noo faa'iideynayso yaan wadanaa wax qofkii noo tiriyo qofka aan noo tirin annaga nalama socon karo way waxaan sida aan barnaamijyo hore aad duubtay aan ka arkay xisbigaagu markii hore office-kaagu wuxuu ahaa jeebka bidig iyo jeebka bidix hadda office-kaagu waa halkii hadda boorsadan ka dhigay boorsadan xafiiska ku xigay marka boorsadan maxaa ku jira shaambadaha ku jira shaambadii xisbiga adu xafiiskii oo guurayo waa xafiiska waa waraaqii waxaasoo dhan xafiiskaagu imka waa shadada sanadka taasu ku dhamaysa sanadka dambana xafiis baan bilaabay aniga xilkaadii magacaabaysa waa maxay dadka ku daawanayna bal la sheer garay adu maadaama nin adag tahay oo la boodka qaatada adu qudhigaagu tahay hooyo tursada waan ku wada jirnayba nin walba noloshiisa inuu maareeyo weeye annagu magacan baan qaadanay meel kale ma ka maaraynaa waxaan oo kale ma sameynaa oo kala duduwan marka adiga waxaan ku magacaabay safiirka dawladda Soomaaliland u fadhiya xisbiga hooyo cid walba waa diiwaan galin lacagna waa ku diiwaan galin marka lacagtan ku diiwaan galiyana xisbigan la soo wadaagay gudoomiyaha cid ka hortirsata kurka go'aan aad baad ugu maasantay inta waqtigaaga nala sheer galaysay aad wax bartay waan ku soo dhaweynayaa nin wax bartay ma tahay xisbigu wuxuu rabaa internal external ma rabo way xisbigu sanadka wax dibadda ka baxaya ma jiraan dalaqda annaga noo muhiim ah intii soo gali maxaa ugu qabanaysaan dadka annagu dokumentana qaadan mayna dhaqaalo haystaan noo eegi maxaa dokument waxaan ugu qabanaynaa annagu shaqada qofka shaqaysan oo dhan waanu dhiiri galin kolkuna siiyo waanu mahadcelin dadka qaar waxa jira marka wax la siiyaa mahadcelin dawaad maadsan tahay ilmaha yarba hooyadii ma dhow waad maadsan tahay tii dhashay laakiin annaga waxaan laga heli waad maadsan tahay waa xisbiga aad xisbiga halala socdo aad baan ugu faraxsanahay in waxa weeyaan waqtigiisa qaaliga uu noo soo huray waliba isaga iyo office-kiisiba waxa weey isagoo hawlo fara badan leh aad baad u mahadsantahay sax aad baad adaa mudan nin wax bartay shaqada xisbiga tahay saacada laga bilaabo shaqadaada furo ama jeebka ku wada xafiiska intuu daldagi ama guriga ma furo sidoo kale dhaantadu waxay ka mid tahay ciyaaraha ugu caansan Soomaalida asal ahaanna waxay ka soo bilaabatay Soomaali galbeed jigjiga waxaan booqanay intii halkaan ku sugnayn koox ka mid ah kooxaha ka dhisan magaalada jigjiga halkaas oo nagu soo dhaweeyeen ciyaaro dhaqameed waqti fiican aan ku qaadanay I'm
waxaanu booqannay buurta Karamardha oo ah meel loo dalxiis tago kana mid ah silsiladda Gurays. jigjigaay dhulkaygaay dhagax buur shiniiliyo qabri dahar tandhiigiyo dhalashada wadaagna saaxiib yaalsaada ujeedaan waxaan soo gaarnay buurta Karamardha. buurtani aad iyo aad bay qurux badan tahay. saada ujeedaan halka cadceedii way sii dhacaysaa. waxaan weeyaan cadceedu casarliiq weeyaan. marka nimankan cadceedda la ka arkay waxa bay qabatay heesta oran jirtay casarliiqa galabtii markaad eegta cibilada caynkoodiyo kale ayaad i cajabisay. jawigan waxa weeyaan jawi heesay weeyaan. anagu ma heesayno. meeshan waa meel aad iyo aad qurux badan. hadda buurtan xagga sare u fuulaynaa. gaariga halkan uu noo dhaaf waayey. la socod wanaagsan. taariikhaha laga qoray magaalada Jigjiga waxay sheegaan in 1926 ay magaalada Jigjiga heshay adeegga boostada. sidoo kale 1956 waxay heshay adeegga taleefanada. intii aanay noqon Jigjiga magaalo waxay ahayd dhul duur ah oo ay ku noolaayeen xayawaanada noocyadooda kala duwan. faradii iyo awrtii xiriirka ahayd ee u kala gooji jiray xeebaha badda cas ee ku yaala sida badda cas, Bulaxaar iyo Berbera kuwaasoo gaari jiray hawdka fog ilaa magaalada Herar ayaa Jigjiga ka dhigay marin laga maarmaan ah. walaal magaca Axmed Ismaaciil Bade. halkan waxay tahay halkan waa halkii xudunta Jigjiga magaalada Jigjiga bilaabanto. halkan waa ceelkii cadaanka sax waa asna imika weeyaan. halkan waa dayma cad baleedaa imika cawskan madartay jiilaalka waa liibiya way hay u baxaa jiilaalka waa liibiya dad baa leh oo u qaybsay aduga caad ahaan reer Jigjiga aan reer Jigjiga halkan iyadoo ceelkan oo reer laga dhaansado oo maaragtay magaalada uu naga dheeraaba halkan uu ka dheereeyay oo asnay dixdan waxana as goorma ahayd sanadii baad ku qiyaas karaysaa ilaa 20 sano ka hor intan waagan noo ku ciyaar jirnay 20 sano ka hor baa okay saada ujeedaan halkan waxa weeyaan albaabkii guriga laga galay oo reer total isagu u xirmay oo maaragtaa waa xiray. halkan sidoo kale waa daaqadihii weeyaan iyo albaabkii oo laftirkooda uu wada xirmay. ceelasha magaalada Jigjiga ayaa ahayd meesha dadku ku nisan jireen. halkaas oo uu ka yimid magaca Jigjiga. sidoo kale magaca Jigjiga ayaa aad uga caanbaxay magacyadii kale ee magaaladaasi lahayd sida Laaca. sidoo kale cadeymaha taariikhiga waxay sheegaan in magaca Laaca uu ka dhigan yahay carrada fudud taas oo ah dhul ku fiican beerashada. imika hadda ay tahay magaalada Jigjiga iyo hareeraheeduba meelo ku fiican beerashada. magaalada Jigjiga waa magaalo laga helo cuntooyinka kala duwan maadaama ay ku nool yihiin dad qoomiyad ahaan aad u kala duwan. sidoo kale waxyaabaha aadka u qosolka badan ee intii aanu ku sugnayn magaalada Jigjiga aan la kulnay waxa kamid ah in magaalada Jigjiga habeenkii waxa 10 habeenimo ka dambeeya ama 9 habeenimo ka dambeeya in oo reer magaalada laga seexdo. walow aan ku sugnayn magaalada Jigjiga 7 cisho haddana taariikhdeeda lagama go'yoonay hal muuqaal loo sameeyo. dhalinyaradii halkan ugu soo dhaweysay oo magacyadooda mid aan u kala qaadaynin aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa.
toddobada cisho halaa ku sugnayn meel kastoo taariikhiyo jigjiga leedahay weyna geeyeen meel kasta weynoo dalxiisiyeen saaxiibayaal haddii adigu aad ahayd reer jigjiga wixii taariikhay leedahay commentiga nagula wadaag muuqaalkan saaxiibayaal haddii idin soo gaadhay ama idin cajibiyo like saar kana mid noqo asxaabta ku xidhan Mawlid Sam tan iyo intaan muuqaal kale ku kulmi doono nabadee